waa qaybtii 20aad qisadii la magac baxday caashaqii hooyan waayey hormuud baa u soo dhacay. hani dhankeeda waxay ku jirtaa qabanqaabo iyo diyaargarow xoog leh. waxaa la joogta walaasheed ka weyn Faadumo oo niyadda u dejinaysa. xaalku waa mid faraha ka sii baxaya. saacado ka hor hani waxaa soo wacay adeerkeed Cali. wuxuu ku wargeliyey inuu aabbaheed xanuun ku soo booday iyo in xaaladdiisa halis tahay. hani aad ayay u walwalsan tahay, iyadoo boorsooyinkeeda xirxiranaysa iskuna diyaarinaysa safar degdeg ah. waxaa ilbaabka ka soo galay Axmed iyo Salmaan oo wada socda. alla mariyoonayaa mise waa gacaliyahayga Axmed, ayay dhahday. hani oo ahayd gabar aflaamta Hindiga iyo musalsalada badsatay ayaa iscelin kari weyday, waxayna u oroday dhanka Axmed. waa naf uu hilow ku raagaye, mar qura ayay isku duubtay oo sidii koolladii ayay ugu dhegtay, iyadoo farxad la ilmaynaysa. Salmaan iyo Faadumo oo dhacdadaas markhaati u ahaana waxaa ka soo haray amakaag iyo indhacdees. Axmed laftiisa dareemihiisa way xamili kari waayeen inuu daawado ilinta ka qulqulaysay hani. isagoo murugada la qaybsanaya wuxuu dhahay, gacalise isdeji, sow kuuma imaan ee maxaa kugu dhacay ii sheeg, ayuu su'aalay. hani imaatinka Axmed aad ayay ugu faraxday, balse qabarka aabbaheed ayaa wax kasta uga cuslaa. iyadoo wejigeeda laga dareemi karo xaaladda murugsan ay ku sugan tahay, waxay tidhi, macaani aabba ayaa la ii soo sheegay oo koomo ku jiro, nolol iyo geeri ayuuna u dhexeeyaa. isbitaal Muqdisho ku yaalla ayaa la dhigay, wuuna ii baahan yahay, waa inaan baxaa. Axmed aad ayuu u qaracmay oo xaaladda soo siyaada ayuu ka naxay. isagoo raba inuu qalbiga u qaboojiyo ayuu ku dhahay, macaanta aad ayaan uga xumahay, aabbe wuu caafimaadayaa insha allah, niyadda khayr u sheeg. waana runtaa, waa inaad aaddaa isaga oo aad garab istaagtaa. walow Axmed uu ka xumaa safarka degdega ah ee hani soo galay, haddana waxaa jira arrintooda mid ka weyn oo ah in gacalisadiisa aabbaheed uu khatar ku jiro. saacado kadibna hani waxaa u yimid gaarigii u qaadi lahaa eelaboorka. Axmed wuxuu awoodi kari waayey inuu raaco oo uu daawado gacalisadiisa oo Nairobi ku cidlaynaysa. halkaas ayaana ballan la isaga qaaday in la joogteeyo wadahadalka. waxaana lagu ballamay marka hani ay Soomaaliya ka soo laabato in dhidibada loo taago jaceylkooda, laguna aqalgalo magaalada Nairobi. waana la ismacsalaameeyey. qisadan la magac baxday caashaqii hooyan waayey hormuud baa u soo dhacay oo ah mid dhab ah. waxaa xuquuqdeeda leh, faafin kara, mas-uuliyaddeedana qaadi kara Axmed Cabdikariim waaye arag. beejkan ku taxnaa oo like saar, qisadan oo sii socotana ka bogasho wacan. 4 bilood kadib, Axmed weli waxaa maskaxdiisa ka tirmin xusuusihii iyo maalmihii quruxda badnaa uu hani la qaatay. waxay beddeshay noloshiisa oo idil. wuxuu had iyo jeer naftiisa u sheegi jiray in rajooyinka iyo ballamihii ay wada galeen inay maalin dhow rumoobi doonaan. habeennada ka mida isagoo qadka isaga jira oo qoraal ahaan asxaabtiisa kula sheekaysanaya, waxaa laga soo wacay ninbaas. markuu eegayna waaba ciwaankii hani oo in muddaa uusan arag. qol ayuu galay si uu gooni ugula hadlo. salaan kadib waxaa mar qura dhagaha Axmed ku soo dhacay, abboowe iska kay cafi. Axmed oo awalba arrimuhu ku cuslaayeen baa fasiraad u waayay waxa hani ay ka wado iska kay cafi. kolkaa buu yidhi, abbaayo xumaanba igama aadan samayne, maxaan kaa cafiyaa? hani ayadana aad ayay uga warhaysay in arrinkan uu Axmed ku adkaan doono, welibana uu khatar naftiisa gelin karo. waxayse tidhi, abboowe ma raba inaan naftaada halis geliyo, waxaan kaa codsanayaa si deggan inaad warkayga u maqashid. wuu ka aqbalay dalabkeeda, balse hani ayaa si lama filaana ku dhahday, abboowe waa lay aroosay. Axmed oo markii horeba wadnaha farta ku hayay ayaa aad u qaracmay. wuxuu ku sigtay in wadnuhu istaago.
guud ahaan jidhkiisa waxaa durba isqabsaday holac iyo dab aad u kulul. miyirka ayaa ka tegay, isagoo kala garan waayay inuu dhulka saaran yahay iyo inuu hawada dul heehaabayo. hani 5 daqiiqo ku dhowaad ayay ku haysay helow ila hadal aboowe. axmed oo weli ka soo kabsan urugada iyo xanuunka gaaray waa markii dambe la hadlay. abbaaye fadlan waa ku baryaa, idheh waan kula kaftamaya ayuu ku tuugay. dhowr daqiiqo kadib ayay hani ku qancisay inuu calafku kala waday, waxayna uga sheekaysay wixii dhacay. abboowe markii aan xamar gaaray, aabbe bil kadib ayuu isbitaalka ka soo baxay oo wuu caafimaaday. maalin annagoo xaflad aroos wada joogna waxaan isbarannay nin xaasle ah oo aan isku qabiil nahay, oo ka mid ah madaxda u sarraysa shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom. xoogaa markaan la kaftamay ninkii ayuu aabbe u tegay oo guurkayga ayuu ka dalbaday. aabbena wuu ka aqbalay, anigana far duco ama far habaar baa la idhahay, anigoo aan ku qanacsanayn guurkaas. caddayn haddaad rabtana sawirrada arooskayga oo bil ka hor ahaa ayaan kuu soo dirayaa abboowe, ayay dhahday. hani waxay sidoo kale axmed u sheegtay inay aabbaheed la wadaagtay xidhiirkooda daacadda ahaa, laakiin aabbaheed ayaa ka soo horjeestay markuu ogaaday reerka ama qabiilka uu gacaliyaheeda ku abtirsado. axmed warkeeda ma rumaysan, wuxuu liqi waayey inuu isaga hadho kana samro jaceylkiisii. sidaa ay tahana wuxuu ku sasabay naftiisa inuu ilaah sidan la jeclaaday oo uu qadarka aqbalo. 7 bilood kadib, axmed weli kama quusan hani. wuxuu u haystaa inay hani la joogto Nairobi, isagana ay iska qarinayso ama wiil kale inay ku qabsatay. bil walba gudaheeda 2 ama 3 jeer ayuu tijaabiyaa nambarkii uu hani ku ogaa oo aan maskaxdiisa ka bixin. habeennada ka mida ayuu nambarkeedii u dhacay, waxaana ka qabatay oo la hadashay gabar kale, taasoo markii dambe hani ugu dhiibtay. ileen hani maalin ka hor ayay Kenya ku soo laabatay oo nambarkeedii ayay dib u soo furatay. aad ayay ula yaabtay in qofkii ugu horreeyey ee soo waca uu axmed yahay. xoogaa ayay wada hadleen, iyagoo ku ballamay inuu axmed beri galab hani soo booqdo, balse markaan hani waxay soo degtay meel aan ka fogeyn xaafadda axmed. waa 4 ama 10 sac galabnimo. axmed wuxuu tegay meeshii ay hani ku sugaysay. midba kan kale la kulankiisa aad ayuu ugu faraxsanaa. xoogaa markii xaaladaha layska waraystay, axmedna uu weli rajo ka qabay in hani u soo laabatay, waxaa hani soo wacay saygeeda. markaas hani waxay sidataa goonno iyo xijaab yar oo gabdhuhu qoorta ka sii daystaan. hani markay taleefanka dhegta saartay, waxay axmed indhihiisu sidii falaash u qabteen caloosha hani. markaas ayuuna xaqiiqsaday in hani ay uur 7 bilood ah leedahay. axmed sidaas ayuu ku quusgooyey. maalmo kadibna wuxuu go'aansaday inuu isaga tago Islii iyo guud ahaan dalka Kenya, si xusuusii hore ee jaceylkooda aysan mashaqo naftiisa ugu sii abuurin. 2 isbuuc kadibna Soomaaliya ayuu ku laabtay. halkaas ayayna ku dhammaatay sheekadii la magac baxday caashaqii hoyan waayey Hormuud baa u soo dhacay. sheekadan oo ah mid dhab ah waxaa qalinka u qaatay, soo diyaariyey, halkanna ka tabinayay Axmed Cabdikariim waaye arag. waxaan idinkaga mahadcelinayaa sida wacan ee aad ula socoteen iyo fikradihii aad ka dhiibateen sheekadan. waxaa inoo balan ah sheekooyin kale oo xiiso leh insha Allah. nabaadiino.